daawadayaal xogo la xiriira dalka Turkiga sidoo kale fiisaha dalkani lagu soo galo muuqaalkan waxaa markaasi si gaar ah ay ugu socdaa dadka Soomaalida ee ku sugan dalka Soomaaliya guud ahaan haday noqoto Somaliland, Puntland iyo sidoo kale meelo kaleba. muuqaalkan ujeedada ugu aan ka leeyahay waxa weeye sidoo kale wuu quseeyaa dadka Kenya iyo sidoo kale Ethiopia meelo kamid ah ka soo baxaya. dadka Djiboutiyaanka ee iyaguna wata baasaboor Djiboutiyaanka qudhooda waa quseeyaa muuqaalkani. arinta ugu weyn aan doonayna inaan ka hadalno waxa weeye dalka Turkiga muddooyinka ugu dambeeyay waxaa ka socday dadka Soomaalida iyo sidoo kale dadka ajaanibka ah in la raafayo oo markaasi dalka markaasi muuqaalada aad warbaahinta kala socoteen in ay muuqaalo sax yihiin. haddaba saaxiibayaal waxaan doonayaa inaan arrin yar oo kooban ka hadlo arrintaas oo la xiriirta in dadkaasi fiisayaasha soo qaadanaya kadibna dalka Turkiga soo aadaya ay gabi ahaanba markaasi la kulmi doonaan waa haddii ay Turkiga yimaadaan in iqaamadaha sharciga dalkan lagu joogo aysan heli doonin sidoo kalena ay marka ay yimaadaan la kulmi doonaan in dalkooda lagu soo celiyo. waxaa jira bulsho badan oo Soomaaliyeed oo lacaga aad u fara badan fiisaha dalkan Turkiga lagaga soo qaado lacagtaas oo dhaxaysa ilaa 4,000 ilaa 2,000 ilaa $1,000 wixii ka sareeya. haddaba walaalayaal muuqaalkan waa idin muhiim. arinta ugu muhiimsan waxay tahay in dalkan Turkiga maadaama dadku qofka Soomaaliga wadankii jooga marka uu halkan yimaado uu miirsanayo in xogaha kaliya ee halkan aad ugu iman karaysan waxay tahay inaad qofka wadankii ka yimaado ee cusub in iqaamad dambe aan la siinin sharciga wadankan Turkiga taas oo ka dhigan in dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Soomaaliya ee dalbanaya fiisaha dalkan Turkiga inaysan heli doonin wax iqaamada ama sharciga. haddaba waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan gaarsiisaan Soomaalida guud ahaan haday noqoto dadka Djiboutiyaanka wata haday noqoto dadka Ethiopiaanka wata Soomaalida haday noqoto dadka Kenyaantiga wata Soomaalida oo iyaga qudhoodu yihiin dad Soomaaliyeed oo baasabooradaasina ay u furan yihiin inay qaataan. haddaba muuqaalkan waxa ugu muhiimsan ee arrintan aan u soo galnay waxa weeye in Soomaalidu ay ka waantoodo oo markaasi fiisaha aysan soo qaadan lacala wadamo kale haday aadayaan iyaga u taala laakiinse fiisaha dalkan Turkiga waxaan idin hubaa in wadankan Turkiga inta doorashadu ka dhacayso aan iqaamad dambe la helin. waxa arintaas u leeyahayna dalkan Turkiga waayadii ugu dambeysay ama bilihii ugu dambeysay waxa dadka Soomaalida iyo sidoo kale ajaanibkaba raaf baa ku socday raafkaas oo ah in dawladdu madaxweynaha ka yahay Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale mucaaradkuba in ay loolan adag kula jiraan dadka ajaanibka ah oo arintu ay tahay in madaxweynaha qudhiisu doonaya in doorashada ku galo oo ajaanibta la saaro maadaama doorashadu 2023 ka dhacayso. marka saaxiibayaal intaasi waa muuqaal aan idin soo diray maadaama Soomaalidu markii ay dalkii ka soo baxayso meesha doonta ka soo baxday aysan miir qabin oo leedahay Turki gaarsi balse marka ay Turkiga timaado ay xaqiiqad ogaanayso biyo kama dhabxanka way jirtaa waaye laga taariibi jiray oo dadku intay yimaadaan kasii taariibi jireen iyo meelo kale ka aadi jireen laakiinse waayadan oo 2022 arrintu way ka sii adkaatay. saaxiibayaal walaalaha Soomaaliyeed ee laga yaabo in fiisaha lacag laga qaato la keeno dhibaato waxaas oo dhan si aan arrintaasi uga digtoonaano muuqaalkan si shargare oo Soomaalida kala gaarsi qof yacni doonaya inuu dalkan Turkiga halkan ugu wac oo u sheeg in muuqaalkan oo ah markii ugu dambeeyay. marka saaxiibayaal waad mahadsantihiin Soomaalida kala sii gaarsiya wixii warar ee ka soo kordhana dib ayaan markaasi u soo gelin doonaa halkan oo ah bogga aan ku leeyahay TikTok-ta Cabdulle Nadaara iyo sidoo kale